بسم الله السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaad kusoo dhawaataan youtube channelkeena Canon Core iyo Facebook page-ka aanu kula nahay foolaadka Facebooka ee Engineer Ibrahim Osman. Muuqaalkan kooban waxaynu ku sharxi doonaa haddii aad tahay isticmaalaha ama isticmaalayaasha aad ka mid tahay kombiyuutarka isticmaala, iyadoo aynu ogsoonahay in kombiyuutarka laftirkiisa loo isticmaalo siyaabo kala duwan. Haddii ay noqoto dhinaca waxbarashada, ganacsiga, hospitaalada, bangiyada, xafiisyada dowladaha, guriga, suuqgeynta ama ganacsiga laftirkiisa, iyo haddii aadba tahay ujeedooyinka kale loo isticmaalo kombiyuutarka ardayda ama studentska. Intaas oo qaybood oo kombiyuutarka ka mid ah ujeedooyinka loo isticmaalo ama baahiyaha ay xaliyaan ama shaqooyinka uu kombiyuutarku waxyaabo badan u fududeeyo. Waxaa laga yaabaa in mararka qaar aad stress ka qaado ama aad yara dhibsato culays fara badan oo ku yimaada kombiyuutarkaaga, halkaas oo ciladaasina ay ka timaado in si sax ah uusan u shaqaynayn RAM-kaagu ama memory-ga kombiyuutarka kugu jira. Sidoo kale waxaynu casharkan ku eegaynaa marka ujeedkiisuna uu yahay, muuqaalkanna uu xambaarsan yahay, in aad hubin karto ciladaha ku yimaada RAM-ka kombiyuutarka kugu jira, haddii uu yahay desktop iyo haddii uu yahay laptop intaba. Kaliya waxaynu gelin doonaa command ayaynu isticmaalanaa, code ayaynu gelin doonaa. Codekaasi wuxuu inoo sheegi doonaa in kombiyuutarkaagu cilad ay haysato iyo inuusan ciladaysnayn, waa RAM-kiisa. Haddii RAM-ka aad ku aragto wax cilada in uu qabo, waxaad samaynaysaa inaad RAM-ka iska beddesho. Haddii uusan wax cilada ku lahayn, kaliya waxay ku noqonaysaa in aad check garayso lana socoto dhaqdhaqaaqa kombiyuutarkaaga. Sidaa darteed waxaa jira command ama qoraal aynu gelin doono kombiyuutarka aynu ku qoran doono, qoraalkaasoo naga saacidaya in uu noo kaco farsamadan aynu ku hubinayno RAM-keena xaaladiisu sida ay ku sugan tahay ama statuskiisa. Sidaa darteed waxaa laba qaab waad u soo kicin kartaa. Mid ka mid ah haddii aynu tagno, waxaad taabanaysaa badhanka Windows-ka ee kombiyuutarkaaga adiga oo haya, ayaa waxaad la qaban doontaa xarafka R ama R. Kadib waxaad ku qori doontaa qoraalkan halkan kugu muuqda oo ah M capital ah DSCHED.exe. intaas ayaad qori kartaa, DSCHED.exe. qoraalkan markaan sameeyo waxaan odhan karaa badhankayga waxaan ka taaban karaa keyboardka kombiyuutarka enter, ama waxaan sameynayaa okay ayaan siinayaa. Sidaa darteed waxaa kusoo bixi doonta daaqad noocana oo titlekeedu yahay ama ciwaankeedu yahay Windows Memory Diagnostic. Marka waa in baaritaan lagu sameeyo kombiyuutarka Windows-kaaga memory-ga ku jira ama RAM-ka. Check your computer for memory problems. Marka qaybtan waxay inoo qabanaysaa, programkan wuxuu inoo saacidayaa in aynu hubinno ama check aynu ku sameyno kombiyuutarkeena memory-giisa ciladaha ku yimaada. Marka memory problems ayuu ku leeyahay ciladaha ku yimaada memory-ga ama RAM-ku. Can cause wuxuu sababi karaa ama ku sababi karaa your kombiyuutarkaaga ayuu wuxuu ku keeni karaa to lose information, in macluumaad uu ka luma kombiyuutarkaaga, or stop working ama ay shaqo ku joojiyaan ama shaqo joojin ayuu ku sameynayaa ama macluumaad ayaa ka baxaya. Haddii mobilka marka kombiyuutarka isticmaalisid uu memory-gu cilad ku timaado, xogtaadii ama shaqadaadii labadaba iyaduna ciladaas way ku imanaysaa. Sidaa darteed waxaanu isticmaalaynaa waa laba badhan ayaa ku jira. Kan ayaynu u baahnaa marka restart now and check for problems, oo ah in kombiyuutarkaaga hadda restarting lagu sameeyo ama demid iyo daaritaan, kadib la hubiyo check for problems, wax alla wixii cilado ah ama dhibaatooyin ay haysta in kombiyuutarka lasoo hubiyo. Sidaa darteed command-ka qaybtan sare ayaanu isticmaalanaa, waxaan siin doonaa click. Kombiyuutarkana waxa uu sameynayaa in uu istimiyo. Sidaa darteed markaan badhankan ku dhufto, kombiyuutarka restart ayuu isku tirayaa. Waxaan siin doonaa imika restart ayaan ku dhufan doonaa. Kombiyuutarka sidaa aragtaan wuxuu soo qoray calaamadda restart. kadib wuxuu sheegi doonaa in intan oo program ay ii soo shidnaayeen aan nidamiyo. sidaa darteed waxaan leeyahay programmadan aduu mar walba restart ile haddii wax program ah uusan kuu kacsanayna ama wax software hadduusan soo daarnayn
usan ku rangaraysnayn kuma weydiinayo stepkan, laakiin haddii programmo kuu shaqaynayay ay jireen oo furan wuxuu ku amrayaa in aad iska xidho. Okay, iminka ayuu damay, sidaa darteed wuxuu isku soo daaray si toosa ayuu isku soo daaray. Titlekan sare haddaynu eegno ciwaanka waa kii markii hore aynu arkaynay oo ah Windows Memory Diagnostic Tool. Marka waa in memoryga computerkaaga Windowska ku duwan memorygiisa ama RAM-ka lagu sameeyo wax baaritaana. Windows is checking baa layidhi, Windowsku wuxuu hubinayaa for memory problems, ciladaha memoryga ama RAM ku yimaada. This might take several minutes, waxay qaadan kartaa shaqadani dhowr daqiiqo ama daqiiqado kooban. Running test pass, marka testigii ayuu wadaa tijaabadii oo 1 of 2. tijaabadii koowaad ayuu 2 tijaabo ayuu tii koowaad marayaa, boqolkiiba 6% ama boqolkiiba 6 ayaa dhammaaday. marka xaaladiina halkan waxaan ka arkaynaa meeshan ay ku qoran tahay status oo xaaladda memoryga iyada waxay tahay no problems have been detected yet, oo weli ilaa iyo iminka ma jiraan wax cilad ah oo RAM-ka qabo oo lasoo qabtay. ma odhan karno wax cilada male ilaa iyo iminka maadaama running test lagu wado oo weli tijaabadii ay socoto, percentagekeeduna 9 marayo. sidaa darteed waxaad sugaysaa inta boqolkiiba 100 uu ka gaadhay tijaabadani. haddii boqolkiiba 100 u dhameeyo oo lagu yidhaahdo RAM-kaaga wax ma qabo, waa alxamdulilah. haddii laakiin aad aragtiin RAM-kaaga wax cilada ku jiraan, waxaad raadsan doontaa RAM-kan mid ka caafimaad qaba oo cusub insha allahu tacaala. sidoo kale waxaa muhiima qaybtan ay ku qoran tahay although the test may appear inactive at times, it is still running, please wait until testing is complete. marka nuxurka meesha ku jira waxay tahay inta uu tijaabadani socoto ee la hubinayo RAM-ka caafimaadkiisa ama inuu bilqabkiisa, in aadan restart ama aadan dimitaan ku samayn computerkaaga. marka waad sugaysaa, sug baa lagu leeyahay inta uu ka dhammaynayo shaqadan. xagga hoose waxaa ku qoran Windows will restart the computer automatically. marka systemka Windowska computerkaaga kugu duwan 8, 10, 7, 11, 8.1 nooc kasta uu yahay oo Microsoft Windowskaagu yahay, si automatically isaga ayaa restart shaqada marka dhamayso computerkaaga u daminaya dibna kugu soo taaraya. kadib test results baa lagu yidhi natiijooyinka ka soo baxa tijaabada tani will be displayed, waxaa lagu soo bandhigi doonaa again after you log on. marka aad soo gashid baa iyadana lagu tusi doonaa insha allah wax alaala wixii ka soo baxa tijaabadan, in computerkaagu cilad barnaamijkiisu qabo iyo in kale. natiijadeeda mid lagaa qarinaya maaha. noo marayaan labada tiro 93 boqolkiiba 97. marka wax yar ayaa noo haray, waa sugaynaa. okay, computerkii waa isdamiyey. markaasee hore usoo sheegnay balantuna ay ahayd waa in computerka marka uu caadi isku soo daaro aynu ogaano marka wixii natiijaha. okay, caadi iska dhigay computerka waa soo wada kacay. sidaa darteed waxaan u baahanahay in aan geliyo passwordka igu xiran. maadaama uu computerkii imika si caadiya inoogu soo kacay, waxaynu u baahannahay in aynu aragno ama aynu helno natiijada tijaabadii aynu soo samaynay. sidaa darteed si aynu u ogaano waxaanu tegaynaa badhanka start buttonka inagoo ku dhufanaynaa right click. kadib waxaynu raadinaynaa meesha ay ku qoran tahay event viewer. event viewer ayaynu hal mar ku dhufan doonaa. kadib waxay noo soo baxaysaa aan weyneeyo daaqad noocan ah. daaqadaasoo iyada laftirkeeda kasii geli doono qaybta bidix meesha ay ku qoran tahay Windows logs. Windows logs markaa ku dhufano wuxuu noo soo furayaa iyaduna daaqad noocan ah oo ay ku jiraan application security setup system forwarded events. sidaa darteed waxaan u baahnaa inagu qaybta ku qoran tahay system ayaan double click siinaya ama 2 jeer ku dhufanaya. waxaan soo aadayaa dhanka midig anoo raadinaya badhanka ay ku qoran tahay find ayaan isagana hal mar ku dhufanayaa. sidaad aragtaan waxaa iigu jira halkan meel aan qoraal ku qoro. waxaan gelin doonaa memory diagnostic ayaan qori doonaa, oo weliba waxaa la doonaya hal eray inaad ka dhigtid wax space aadan gelin, sida aan u qoray aad raacdid memory diagnostic. fine ayaan odhanayaa. sidaad aragtaan halkan ayuu iga soo calaamadiyey qaybta aan doonayey. sidaa darteed waan iska xidhayaa tan.
tan ayaan 2 jeer ku dhufanayaa. sidaa darteed waa natiijadii aynu sugaynay ee markii hore aynu lahayn kombiyuutarkaaga markaad looga aad timaado ayaad heli doontaa natiijada oo mid lagu soo bandhigayo waa tan oo waxa uu inoo sheegay the Windows Memory Diagnostic memoryga ama baaritaankii Windowsku memoryga ku sameynayay tested the computer's memory waxa uu tijaabiyay baa lagu yiri computerka memorygiisa and detected wuxuuna helay ama uu soo qabtay no errors wax cilad ah ma uu soo qaban sidaa darteed testiga aynu soo sameynay RAM-keena wax cilad ah lagagama helin waxaan maanta faa'iidnay inaynu kala ogaano kombiyuutarka waxyaabaha cusleeya badanka ama RAM-ka inay yihiin cilado ku yimaada sidaa darteed haddii kombiyuutarkaaga culays fara badan uu kaga imi waxaad uga shaki kartaa in uu yahay mid xun ama cilado leh ama mid caadi ah sidaa darteed qaabkan fudud command-kaynu qornay ayaad qoraysaa stepskii ama talaabooyinkii hore aynu soo qaadnay uun baad soo raacaysaa ugu dambeyn markuu kombiyuutarkaaga soo daaro si aad u ogaatid natiijadana waxaad iman doontaa stepska aan soo raacay muuqaalkeenuna intaas ayuu ku dhan yahay muuqaalka xiga intaan iskaga iman waxaan ka tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subscribe haylaawina muuqaalkana sii share garay oo la wadaaga asxaabtaada like-na noo saar wixii faallo iyo fikir ah iyo codsi waxaad noogu reebsaa qaybta faallada ama commentiska salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi تعالى وبركاته.